salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. halkanina waa taar t v daawade ku soo dhowaada barnaamijkeennii waxweydiin ogaal ka sheegne. qodobada war iyo wacalan idinka hayna carreedeg waxaa ugu dooroon ceelkii laascaanood oo loogu dawgalay walxamiirato, mucaaradkii dalka ereteriya oo aanu wargeeya ka bixin, somalilan oo waxoogay qulbanah gaadhsiisay deegaanka milxo, xasan sheekh maxamuud oo saraakiishii ciidamada ka dhigay in joogta iyo in jiifta, madaxweynaha soomaaliya oo imaaraadka uga ergooday siciid cabdilaahi deni, ra'iisul wasaare barre oo u qoob qaaday carro maraykan, mustafa cagjar oo col u dumaya deegaanka qotida oromada, iyo weliba iiraan oo ku geeraaraysa markii rag isu taagsaday aniga tayda ma ahaatay washington miyaan tolay sidii iga tariiqaysa. wararkaasi iyo warar kaloo dheeraad ayaan idahaynaa ku soo dhowaada barnaamijkeen. ilaa 228 ka mid a taageerayaasha mucaaradka dalka ereteriya ayaa lagu xidhay gudaha dalka jarmalka, gaar ahaanna magaalada stuttgart kadib markii ay isku dhaceen dadkaasi iyo duulka bilays la yidhi ee magaalada dhacda koonfurta dalkaasi. isku dhacan ka dhex bawaagay bilayska magaaladaasi iyo taageerayaasha mucaaradka ereteriya ayaa qarxay habeennimadii sabtida ka gadaal markii ay taageerayaasha mucaaradku isku dayeen inay arbushaan munaasabad ay soo abaabuleen taageerayaasha dowladda ereteriya iyo xukuumadda madaxweyne siyaas afawarqe. sida la sheegay ilaa 300 oo bilays ah ayaa la geeyey goobta uu bandhigaasi ka dhacayay kadib markii laga war helay qaasaabo sarcilka ay duulka mucaaradka ereteriya goobtaasi la maagan yihiin. afhayeenka ciidamada bilayska magaalada stuttgart ee dalka jarmalka ayaa tibaaxay inay dadkaasi weerarra ku soo ekeeyeen goobtii uu bandhigu ka socday, islamarkaana ay ciidamadu ka hortageen wixii ay dadkaasi maaganaayeen. ninka afnaqa u ah duulka bilays la yidhi ee jarmalka ayaa sheegay in 32 qof ay ku dhaawacmeen iska horimaadka, kuwaas oo ay ku jiraan 26 ka tirsan ciidamada bilayska magaalada stuttgart. wuxuu sheegay in 4 ka mid ah taageerayaasha xukuumadda madaxweyne siyaas afawarqi iyo 2 xubnood oo taxdhiga mucaaradka ereteriya ay iyagana halkaasi qoome ka soo gaadheen. wuxuu sheegay in ugu horrayn ay halkaasi dhifka isku geliyeen 9 qof oo ka mid a taageerayaasha dowladda ereteriya iyo 100 taageersan mucaaradka dalkaasi, kuwaasoo diiday inay tagaan goobo ka gaar ah meelaha ay taageerayaasha dowladda ereteriya dhasalaalaqa ka wadaan. sida uu sheegay afhayeenkan u hadlayay ciidamada bilayska magaalada stuttgart, mucaaradka ereteriya ayaa ganafka ku dhuftay inay tagaan goobaha loo asteeyey inay mudaaraadada ku soo bandhigaan. afhayeenkan ayaa tibaaxay in dadkaasi ay askarta ku weerareen budad, masaabiir, biro, dhalooyin iyo dhagxaan. kala tahandooggan ayaa noqonaya kii labaad ee ay muddo dhowr kalgeel gudaheed ah isku dhacaan duulkan ku sugan dalka jarmalka ee dhammaantood u dhashay dalka ereteriya, kuwaasoo kala taageersan mucaaradka iyo dowladda. bishii 6 ee gugan ayaa 22 hore loogu dhaawacay magaalada geysen oo iyaduna ka mid ah dalka jarmalka kadib markii ay isku muqloobeen mucaaradka iyo muxaafadka dalka ereteriya, halkaasoo ay ciidamada bilayskuna ku jebiyeen gebi ahaanba haad biidhi in ka badan 100 qof oo madax madow, kuwaasoo dhammaantood taxdhiga mucaaradka ereteriya. dowladda ereteriya ayaa ka goday etoobiya bishii May gugii 1991 iyadoo si toosa ugu dhawaaqday madax bannaanideeda bishii May 1993, xilligaasi oo uu hogaaminayay madaxweynaha haatan dalkaasi haystay siyaas afawarqi, kaasoo ku caan baxay gacan adayg iyo mayal qalabsanaan aanu cidna uga aaba yeelin. dalkan ku yaalla badda cas ayaa cunaqabatayn lagu saaray inuu faraha la galay colaado badan oo ka helimaasay geeska qaaradda gududan ee afrika, kuwaasoo ay ku jiraan xadgudubyadii ay ciidamada ereteriya ka geysteen dagaalkii u dhexeeyey tigreega iyo etoobiya, kaasoo ay ciidamada ereteriya garab siiyeen kuwa dowladda dhexe ra'iisul wasaare abi. isaguna madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa wareegto uu soo saaray dhalaatii maanta ayd ku magacaabay sarreeye guud maaday nuure sheekh, kaasoo noqon doona ku-xigeenka taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed sarreeye gaas ibraahim sheekh ciidiin. madaxweynaha ayaa sidoo kale wareegtadii maanta ugu dalaasiiyey taliyaha ciidamada lugta soomaaliya gaashaanlo sare dayax cabdi cabdulle. gaashaanlo sare dayax ayaa bedelaya sarreeye guud axmed aadan cali oo halkaasi ka soo muuqday teeriya bishii juun ee gugan aynu ku jirno. magacaabistan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo ay ciidamada dowladdu haatan wadaan gulufka ka dhanka ah kooxaha argagixisada ee ku sugan gobollada dhexe ee soomaaliya, gaar ahaana kuwa hiiraan iyo galgaduud, iyagoo goorsheegihii ugu dambeeyay ciidamadu kooxahaasi ka qabsadeen magaalada camaara oo ay guyaal badan duulka xagjirka ahi ka alaaqaysan jireen.
dhinaca kale isbeddelkan uu madaxweyne xasan sheikh ku sameeyey qaar ka mida taliyayaasha ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa imanaya iyagoo ay bishii hore ciidamada dowladda soomaaliya dib uga soo faaqteen qaar ka mida deegaanadii ay hore uga mahoobiyeen maleeshiyada kooxaha argagixisada ka gadaal weerare qadhaadh oo ay duulka argagixiso la yidhi ku soo ekeeyeen saldhigga ciidamada xoogga dalka soomaaliya ee deegaanka cawsweyne. tallaabadani ayaa dhiirigelin u noqonaysa ciidamada soomaaliya ee diriirta kula jira kooxaha argagixisada halka ay sidoo kalena meesha ka saarayso duulkii taliyaal lahaa ee kalgeelkii hore ka soo gurtay deegaamadii ay kooxaha jirka ahi ciidamada soomaaliya kala wareegeen kuwaasoo nafta u soo foorariyey deegaamada ku dhow degmada cawsweyne iyo inta haysa. weli halkaad nagala socotaan waa taar t v iyo wararka ka soo baxaya deegaanka milxo ee gobolka sanaag oo uu dhowaan dabsi nihaaba ahi gerarafay ayaa sheegaya inay somalilan agahaasi kula diiday waxooga ibaajeeris iyo gobshays isugu jira. waxaa la sheegayaa inay gaadhsiisay waxa ay ku sheegtay taakulooyin widiidi ah oo dadka deegaanka milxo ay u baahnaayeen. waxaa la biniixinayaa inay halkaasi geystay xukuumadda somalilan waxoogay bariid ah in daawooyin ah waxoogay huya iyo bustayaasha dhaxanta laga huwado. waxaa la sheegayaa inay somalilan halkaasi kula itaashay silsi iyo kowl ay dabka saaraan bulshada ka ceel haysa deegaanka milxo maadaama ay dhowaan shuf beeleen wixii cunti halkaasi u taallay. wararka ayaa sheegaya inay deeqdani ahayn midii ugu dambaysay ay somalilan halkaasi geyn doonto balse ay jiraan gargaaro kale oo ay caanamaalada soo socda deegaanadaasi kula tibad doonto. wararka ayaa intaa ku daraya in dadka deegaanadaasi ay si weyn haatan ugu jeel qabaan waxaa laalay wixii dhankeeda lagu soo yuubayo maadaama oo uu dabkii halkaasi ka belelay gebi ahaanba uu sahiday wax kasta oo meeshaasi yaalay hadday dhar tahay hadday karin tahay hadday dhismo tahay hadday feedho gashi tahay hadday bariid tahay hadday bur tahay hadday misir tahay hadday qabandi tahay hadday sonkor tahay iyo weliba hadday kaba tahay. waxaa la bitinayaa in teeriya intii uu deegaanka milxo dabkaasi ka hulaaqayba aanay somalilan halkaasi taanan wax gurmad ah wax gacanah iyo garab ah iyo gaashaan maadaama oo muddooyinkii u dambeeyey somalilan ay iska barakaysneed meelo badan ay wax kaga furnaayeen. weli halkaad nagala socotaan waa taar t v iyo wararka ka soo baxaya magaalada laascaanood ayaa sheegaya in habeenkii xalay halkaasi lagu dhuundhabay 6 qof oo aan waxba galabsan kuwaasoo la isaga soo dhigay duulka walxamiirah ama isku shuba calaqa la fuusado. wararka ayaa sheegaya inay qolyahaasi rasaas kala duldhaceen dadkaasi ka gadaal markii ay maankooda dooriyeen. waxaa la sheegaya inay magaalada laascaanood ku soo bateen kooxaha cabtooga ah ee iska sayrsaydhinaya rasaasta aan lahayn miidaantayga. waxaa la biniixinayaa in teeriya intii ay somalilan ka soo baxday gobolka sool agahaasi lagu gaban waray dad tiradoodu gedmatay kuwaasoo aanay laba cali isweydiinin. wararka ayaa intaa ku daraya in dadka ay qolyaha cabtooga ay qudha ka jaraan arrinkooda lagu dhammeeyo si xaal mastuur ah iyo weliba si hoosoosa. wararkaannu halkaasi ka helayno ayaa damuuninaya in 6 qof ee xalay la isugu la geliya ay ka soo kala jeedaan 1 qof oo beeraha majeerteena 2 ugaaryahan ah iyo 3 qof oo kale. wararka ayaa intaa ku daraya in sidoo kale la dhaawacay qof dumar ah iyo nin ku ayoda beesha khayaadeed. sida la sheegay dadkan ayaa markii dameerta loo soo fuulay cawsanayey ama ku caweynayey maqaaxi dheega ku haysa dowladda hoose laascaanood kuwaasoo markaasi aan burkaba bahal ka filan. waxaa la sheegayaa in magaaladii sidii isu dhex qaadayso oo khaati laga taagan yahay kuray xooglayaal lalansanaya dabajaariya iyo miskeeti kuwaasoo aan cidnaba waxba ka dhegaysanaynin. wararka ayaa sheegaya in magaalada laascaanood marka uu gobolku u dhaco ay la wareegaan kooxo shufta iyo dabaajiir iska dhaamiyey calaqa lagu waasho. waxaa la biniixinayaa inay markaasi 4 jaho u farraqaan dab iyo baaruud wixii ay hayaan. waxaa la isla dhex marayaa inay bulshada laascaanood guryaha hoosta ka soo xidhaan marka ay qorraxdu badbadato ama uu habeenku soo kaankaansanayo. ila wadi jiray baa dadweynaha ku dhaqan ceelka laascaanood iyo inta haysa ayaa tan iyo intii ay ciidamada somalilan ka xaymarteen gudaha ceelka laascaanood wadnaha farta kaga hayay aminta ay nafta u qoonsan doonaan duulka walxamiirka iyo calaqa fuuda islamarkaana ay goga u gelin doonaan xabad aan ujeedo lahayn ama seeraara. intaa warranay waxaanu ku darna ma ogin wax weydiin ogaal ka sheegna maxamed aadan dirtan iyo kulanti dambe nabadgelyo iyo nooli kulanti qur-aanka iyo higaada carabi hufan iyo adkaarba haddaad rabtay barashadooda haleella si aad u weyday anaa ku hagiyo dhegayso adoo wata howlahaaga adoo shaqadaada haysta adoo hooygaaga jooga adoon basba'aan hawaysan adoon lug ku sii haraadin almuxsin baa habab online ah kuu haqabtiraysee hadhaafin. madrasada almuxsin quraan online waxa ay ku baraysaa diinta islaamka iyo quraanka eebe iyadoo adeegsanaysa hab online ama maqal iyo muuqaal gaar ahaan adigoo jooga baradaada iyo beedkaaga. si caruurta loogu barbaariyo higaada iyo naxwaha fadlan la xiriir almuxsin quraan online wixii faahfaahin dheeraada kala xiriir aleenada shaashada kaaga